Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marmarka qaarkii waxay noqon kartaa xanuun ama genetics inuu qofka ka soo baxo jir siyaada ah. Ganga iyo Jamuna labadan hablood ee isku dheggan waxay wadaagaan 3 lugood iyo 4 gacmood. Cajab. Gabdhaha walaalaha ee Ganga iyo Jamuna waxay wadaagaan 3 lugood iyo 4 gacmood. Waxay wadaagaan wax walba oo ay ku jirto jacaylka noloshooda. Halka mataanaha isku dheggan sida caadiga ah loo kala saaro barta isku dhafka ah. Ujeedooyinkeena waxaa laga yaabaa in loo qaybiyo 2 qaybood oo ballaadhan kuwaas oo wadaaga hablahan hal qaybood oo ah xubinta taranka. Mataanaha isku dheggan ayaa waxay jeclaadeen hal nin isla markaana guursaday nin kale 3 dhagood. Ninkan oo u dhashay dalka Australia ayaa waxa uu leeyahay 3 dhagood. Waa hubaal waad isweydiinaysaa 2 dhagood fahanaya ee dhegta saddexaad maxay tahay xaqiisa ku taal. Ninkan dhegta saddexaad waxa uu ku leeyahay gacanta waxa uuna ku maqlaa waxyaabaha fog. Ta kale aan soo qaadan doono ayaa ah iyaduna ilmaha uurka leh. Tani waa sheeko cabsi nololeed oo dhab ah oo ka dhacday Botswana ee dhaca Koonfurta Afrika. Ilmahan kuma uuna dhalan isagoo xubno jir oo dheeraad ah wata, laakiin wuxuu ku dhashay isagoo uur leh. Ilmahan yar ee arkana waxay dhalatay iyadoo uur leh, iyadoo oo wadata walaalaheed. Xaaladda waxaa loo yaqaanaa uur ku jir ah, waxayna dhacdaa qiyaastii 500 ee qof hal marba. Haweeneyda madaxa foolka ku leh, haweeneydan oo u dhalatay waddanka China ayaa waxa madaxeeda ka soo baxay fool dheeri ah, taasoo soo gashay liiska dadyowga qaybo dheeri ah uu leeyahay jirkoodu. 2009 waxay si lama filaan ah u jabisay foolkii ka soo baxay iyadoo isticmaashay daawo dhaqameedyada China, waxaana ka soo baxay foolka weynkii hore oo dhererkiisu yahay 5 inji. Dhaqaatiirtuna waxay u sheegeen in xalka keliya ay u baahan tahay inay tahay qalliin. Ta kale aan soo qaadan doono ayaa iyaduna ah wiilka 3 gacmood leh. Wiilkan yari waxa uu ku dhashay isagoo 3 gacmood leh. Cajab. 2 gacmood garanaya ee gacanta saddexaad xaggay ka soo baxday. Haddaba dhaqaatiirtu waxay ku dawaqeen inay kala saaraan gacmaha saxda ah ee meesha qaldan ka soo baxday. Dhaqaatiirtuna waxay sheegeen inuu u baahan yahay physiotherapy badan. Dhaqaatiirta ayaa waxay go'aansadeen inay ka gooyaan gacanta saddexaad ee u dhow xabadka. Ta kale aan soo qaadan doono ayaa Kangan. Tani waxay ka mid tahay mucjisooyinka la yaabka leh. Wiilkan yar ee lagu magacaabo Kangan waxa ku dhashay cillad naadir ah oo ay ku dawaqeen hooyadii iyo dadka ku hareeraysanba. Wiilkan ayaa waxa ku dhashay isagoo leh 2 waji ama maaskaro wata. Haddaba dhakhtar lagu magacaabo 163 Military Hospital oo ku yaala China ayaa qalliin ku sameeyay wiilkan yar, taasoo lagu hagaajiyay wajigiisu qaabkan uu eeg yahay. Ta kale aan soo qaadan doono ayaa Franska Latina. In qofka bini'aadamka uu ku dhasho 3 lugood maaha wax sahlan, saayid bayna u adag tahay. Franska Latina ayaa waxa uu dhashay 1884 isagoo keligii ah. Waxa uuna dhashay isagoo 3 lugood leh. Waxa uu lahaa lafo miskaha ah oo buuxda sida xubnaha taranka ee ragga oo kale u samaysan. Haddaba Latina waxa uu noqon karaya qof 4 lugood leh, sababtoo ah lugtiisa afraad waxay ku dhaganeed jilibkiisa, laakiin waxay ahayd mid yar. Ta kale aan soo qaadan doono ayaa Joseph Martinez. ayaa waxay dhalatay 1868. Waxay ku dhalatay xafka qalaad loo yaqaano Debekis, kaasoo ah inay ka soo baxaan 2 lugood oo saayidi. Isku darka lugaheeduna uu noqonayo 4 lugood. Way dhaqdhaqaajin kartaa 4 lugoodba, laakiin 2 kaliya ayaa ay ku socon kartaa oo 2 kale waa daciifooyin yar yihiin. Waxay ahayd gabadh guul weyn ka gaadhay bandhigyada caalamiga ah, taasoo caan ku ahayd gabadhii 4 lugood lahayd ee Texas. Waxay guursaday dhakhtar kaasoo ay u dhashay 4 caruur ah. Haddaba qisadeena ugu daran ayaa waxay tahay tan hadda soo socota. nin kale 2 xubnood ee taran. Jirka bani'aadamku waa cajiib. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abuurtiisuna waa la yaab. Waxaad arkaysaa dadka qaarkii san siyaada ah iyo af siyaada ah ayaa ka soo baxaya oo ay la noolaanayaan. Haddaba ninkan aan kuu soo gudbin doonaa waa uu ka duwan yahay dhammaan dadkii aan soo gudbinay, oo waxa uu ku nool yahay UK. waxa uu leeyahay 2 xubnood taran, taasoo badiba la yaab ku noqotay dadyowga caalamka ku nool. Wax dhib ah iyo xanuun ay ku haysaana ma jiro. 2diisa xubnood ee taranna si wacan ayay u shaqaynayaan.